بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وروضي جت المنها وهذا صوص تاري وحبان ده كيابه إيران كيابه سياسة دي فاشل كابان كيابه runtii waxaa la yaabaa iyo dadkan horta loo sheekeeyay ee ummadan ama reer Soomaaliland ama meel kastaba joogtaa waxaan talo macaqligeena fakiyihin waxa garashadii kaga dhacay horta kulliba caawa karbash badan oo dhinacyo badan taabanaya baan halkan ka soo deyn doona oo yar fara badan oo berigii hore gunno la siin jiray oo malcaamada odayga saaqidka ah ee la yiraahdo ina Cumar Dool malcaamadiisa dhigta oo ugu sheekeeyo reer hebel baa reer hebel caay jiray taas horta waa caawa iyo caalamka iyo page-ka aan leeyahay kala socon doontaan. qodobka kale ee laba Cabdiraxmaan Cirro waxa la doortay 2005 waxaan loo doortay waliba xisbiga u cudbo ka soo baxo Faysal Waraabana uu qiyaamiyay waxa laga dhigay gudoomiyaha baarlamaanka waxa bariga isugu tagay oo udub ka soo horjeestay xisbigii kulmiye haatanna uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Bixi barigaana uu hogaaminay Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo gudoomiye Faysal Waraabo oo ahaa xisbiga UCID waxa laga dhigay gudoomiyaha golaha wakiilada ilaa 2005 bay ahayd waxay kaga ekeyd 2010 maxuu markaa wuxuu ka qaban waayay 7 sano ee uu extrada ahaa ee uu ku fadhiyay muddo kordhinta bal ha ka soo jawaabo intuu maanta halkaas soo istaagay buu kulay afafkii suuqa ahaa street language ciyaalka yarar ee social media ka qayliyaha wariya suudi buu hal war xisbigan wadan ilaahdo waxa laga maamulaa qurbajoog cadaysan oo ugu horeeyo odayga waxba yahay Cumar Usmaan Dool iyo sidoo kale Mahdiga Naxli iyo Nacayb ee Muqdisho fadhiya waxaana afka diblomaasiga ma yaqaanaan af ciyaal suuq bay ku hadlaan Cirro waxaan weydiinayna adeer marka shaqadu baarlamaanka fadhideed dirqiya Allahu lagaaga kixiyay ee xitaa aad garan kari weyday war saqan jiiri maadaama aad candidate aad musharax tahay oo aad ka digi weyday waa laga xishoodo bulshada reer Soomaaliland way ka xishootay wax fara badan laakiin walaal xishoodka waa soo dhaaftay marka shaqadaad 2005 baa lagu doortay mandatekiinu wuxuu ahaa 2010 adiga ay ahayd inaad soo diyaarisid shuruucdii lagu dooran lahaa baarlamaankii ku bedeli lahaa oo murankanba adiga ka tegayba waadiga xitaa gudoomiye ku-xigeenkaagii baasho feedhayba fulishiga ciyaalkii hore kale markii xeerarkii uu ka horyimi maanta inaad bartaas soo istaagtid dee ciyaalkii carruurta u sheekee oo tiraahdo waxba adiga yahay ninka dayacay Muuse Bixi markaa madaxweyne mu ahayn muu joogin mucaarad baa dibadda joogay gar ilaahay bay taqaana maanta inaad cadowga iyo nacabka soo raacdid war Soomaaliland walaahi duumayso waana jiraysaa waana joogaysaa mid kastoo been ku sheego social media han kala socdana walaahi wadadii uu qabsan jiray buu qabsanaya ama ha ka yimaado gaarisa ha ka yimaado ama ha ka yimaado gedo ama mid kale oo kuwaalay ha noqdo Soomaaliland way jiraysaa waana joogaysaa dhakaxirna Soomaaliland u duumayso waa isaga cadhaysiin kan soo toosino saasa waxaba ku hadlayaaba afkii carruurtaba ciyaalka sidoodii baa buu hadlayaaba madaxweyne Muuse Bixi waxay ahayd inuu ka hadlo arrimaha full of nonsense siyaasaddu ka hadlaya siyaasadda dibad soo doonaabo hadlaya ma adiga afkiisa sida ciyaalka yarbaad intaad aadhiyahoodi soo qaatay la timi warbaahintii aad la hortimi intaad gurigaaga daara aad gurigan xagaad keentay iyo dhaqaalahan iyo kharashkan 7 sanadood oo extra baad ku fadhiday baarlamaanka oo laga kari waay war bal xeerarkii soo diyaari war meesha iskaga dig 7 sano aad xaaraanta ku fadhiday aad ka sheekay maxaad u diyaarin weyday adigu xeerarkii adigay tahay war waa inoo caawa iyo page-ka insha Allah ta'ala kooxa fara badan ayaan caawa buufinaya oo ay ku jiraan xitaa ku yar habar jecla oo wasiiradii bariga hore wax boobay ee wasiiradii wax boobay ee Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo magaciisa ku ciyaaray ay gunayn jireen oo maanta afqarmuun midhanta Facebook ay la wada yimaadeen ay meelaha wax ku soo warqoraan dabna macaamada munaafiqa in Cumar Dool bay dhigtaan oo ku ugu sheekeeya sacan Muuse Silaayo ay jiro oo maana codayn miyaanay labada jeerba u codayn yaa munaafiq adiga u codaynay marka sudi ka soo horjeeday Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo gudoomiye sanamaha oo taariikh dheer dalka ku lahaa oo Allahu musta'aan u halgamay kacaaya codkana uu siinayba adigu waxa ahayd laakiin munaafiq aniga ma siri kartid ciyaalka yareed waxa ugu sheekaysna waan aqaanaa waa ciyaalkii wasiiradii maafiyada ahaa ee Axmed Silaayo barigi intuu aaminay waxa ninku aaminay waa ninku falay oo la soo xiriiri jireen oo qaarnaan ogahay waa inuu caaw insha Allah ta'ala iyo page-keeni balaarna insha Allah ta'ala. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.